loona soo guuriyey gurigeedii runta ah ama hoygii ay ku dareemaysay inay mas-uul ka tahay oo gurigii ninkeeda se inanka waxaa la nool hooyadii oo waa yeela sida caadada ahna waalidiintu alaaba waxay waaniyaan oo wax u sheegaan gabadha ay dhaleen ama gabadha ay sugahda u yihiin ama wiil nooc walba u ahaado iyagoo isla wuxuu ha fiicnaadeen hana noqdeen wax qurux badan gabadhii guriga loo soo guuriyey waxay saluugtay oo dhibsatay hooyadii halkay hooyada ka ahayd wax wanaaji aysan ka ahayn wax xumay aalaana waxaa caado ah dumarka waalidka ah ee waayeelka ah inay wax canaantaan canaantusa aysan ka ahayn kala go iyo kala dhaqaaqa ay wax hagaajiye ka tahay dubadiiba gabadhii waxay bilowdeen islaantii nacdo oo ay dhibsato wax sheegeeda iyadoo karahsanaysa markay muuqaalkeeda aragtana gabadhii waxay faralkeeda gashay si ay habartii ku dili lahayd isuna dhaafsiin lahayd canaanteeda iyo wax u sheegeeda iyadoo u haysata habartan inay tahay imtixaan loo soo diray deegaanka ay gabadha iyo islaanta iyo ninkeedu ku noolaayeen waxaa joogay digtoor ku fiican daaweynta dhirta dabeeta gabadhii waxay aaday digtoorkii dhirta daaweynteeda ku fiicnaa iyadoo weydiisay sun ama wax daawo ah ay habartii ku dili karto digtoorkii gabadhii wuxuu u qoray geed wuxuu yidhi geedkaa maalin walba ugu dar cunnada sanad gudihii islaantu way tegaysaa dabeeta gabadhii waxaa u sawirantay tegitaanka islaanta uunbaa kuu muhiime mar haddayba kaa tegayso daawada sii digtoorku intaa wuxuu ku daray si habarta aysan uga sheekeyin inay tidhaahdo erayo kalgacal iyo naxariisle una roonaato maadaama ay tahay habartu habar tegaysa tii aakhirana sugayso daawada ayay soo qaadatay gurigeeday timi wax bilowda erayo naxariis iyo kalgacal leh iyadoo maalinba maalinta ka dambaysana habarta dhirta ugu daraysa caawinaysa u soo dhowaanaysa iyadoo aysan ka ahayn naxariis iyo kalgacal ay ka tahay way tegaysaa sii turunturay islaantii marka aragtay gabadha kalgacalkeeda iyo wanaaggeeda iyo isbeddelkeeda durbadiiba waxaa gashay naxariis waalid waxay bilowday inay canaantii ka yarayso ay u soo dhowayso nafteeda caawiso kelmado naxariislana ay tiraahdo waxay arrinku sidaa ahaado oo muddo socdaba gabadhii waxay aragtay inay hooyadeed aysan waxba uga duwaneen islaantuna ay tahay hooyo naxariis iyo kalgacal la saaxiib ah iyadana wanaagga la doonaysa dabeeto gabadhii durbadiiba waxay u timi dhakhtarkii iyadoo le doctore waxaan doonayaa islaanta inaan iska daayo sidee baynu ku badbaadin karnaa maadaama 6 bilood iminka aan sunta siinay waa naxariis badan tahay waa hooyaday dhib la'aan dhashay doctorkii gabadha ayuu ku yidhi soo dhowow gabadhaydii dawadaan ku siinayo waxay ahayd daawo kalana mana ahayn daawo islaanta nafteeda wax yeelaysa keliya waxay ahayd daawo midabka cunnada yar beddelaysa waxaan ku dareensiinayay maadaama aniguna aabbaha waxba aan ka duwanayn naxariista iyo kalgacalka waalidka la siiya iyaga inaad kala kulanto taa mid lamid ah aadana walba aad naxariis iyo kalgacal iyo wanaag kala kulantaa beddelkeedu ku siinaya hooyada keliya waxaa ka dhinayd markii hore inaad u dulqaadato kelmadaha ay ku odhanaysana aadan dhib ka soo qaadin wanaag ay kaala kulanto iyadoo marka aad ka arki lahayd wanaaggaa siisay laba jibaarkii haddaba gabadhay sodohdu waa hooyada hadday ku canaanato ha ciishoon ha colaadin oo ha habaarin u dhowow oo wanaagsiiya waxa hubaalah inay ku geynayso booska gabadheeda waadna taho